هل كان بركة لكانوا إلا أنصحيو إلا يناخريو نمبر 1 تاجرها هو إمي كنا شكها بوني للشوتي وعدو فايدين عدو بدو فايدين أيامها كهري على الوقت أنا هاينا وتمن دولة وانا الله قصدي دلكن وانا الله قصنا والفرمات هو حلا ودي سنسن وشنتي رئيس الوزراء هل كان لاي هي أفر نينو لمن مدحوينيال نقدين لمن أي دونيان إني مدحوينيال صوماليا كان نقدان ويشرحيهين ويمالين والبتيفية وتاجين انتم waxay isku raaceen colaada Soomaaliland bay isku raaceen ugu kaalmooday rag buuaya ee maanta koonfur ka soo buuaya ee ugu horeeya Xasan Sheekh ee ay ku jiraan intii madax ka soo noqotay inta madax sugaa ka aba ilhaan Umar baa Mareykanka ka soo duushay garooway saaxatay boosaasay tagtay xamar bay tagtay Soomaaliland walla qoonsanaya ka hortaga bay tiri siyaasi Maxamuud Salebaan Ramaax oo kamida siyaasiyiinta Soomaaliland oo qayb kamida warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay isafgaradkii dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya waxa uu si gaar ah fariin ugu diray madaxda kala duwan ee Soomaaliya kuwaas oo ku sheegay inay yihiin cadawga Soomaaliland siyaasi Ramaax oo arrimahaasi arrimo kale ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay fariimaha u dirayno ummadayada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah runtii jaanis weyn oo maanta hadduu sidiisa wargeli waayo ay tahay waqti aynu luminay oo inagu qaadan doontaa mustaqbalka ayaheena baabiin doonta sida daraadeed waxa aan farxadda marka hore la qaybsanayaa burco oo maanta taageeraysa heshiiskii hordhaca ahaa ee lagu soo galay Addis Ababa ee ka hadlayay danaha iyo aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana aynu dawladda Itoobiya la galayno oo laba dala waan ku hambalyeeynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo intii ka hawlgashayba in hawshaas ay soo qaateen dhamaystirkeediina golayaasha qaranka looga fadhiyo waxaan runtii ugu kaalmooday rag buuaya ee maanta koonfur ka soo buuaya ee ugu horeeya Xasan Sheekh ee ay ku jiraan intii madax ka soo noqotay inta madax sugaa ka aba koonfurka waxa leeyahay walaalayaal 19 baanu xorriyadeedii la soo noqonay ilaa 1960kiina waxaan u dagaalamaynay xorriyaddii iyo habeenkii lumay inaanu dub ula soo noqono walaalnimadu waa ku joogi weydeen wax wada lahaanshiyo waa ku joogi weydeen wixii naga gaadhay 60 sanadood ee ilaa maanta aanu ku jirno maanta jaaniska hortayada yaala ina maantana doontaan ina carqaladeysaan waxa u soo buuxaysaa waa dagaale diyaar baanu idinay baan leen Xasan Sheekh oo waxba masaajid ha ka bariyo tamin Soomaali ha iska dhigin islaam ha iska dhigin beenaale khayna baatiin dhammaantiin waxaan u sheegayaa walaalaha magaca Soomaaliyeed sheegta Soomaaliland maanta jaaniskay maraysaa waa kiisa awal saadaad uu talaabiid kaga degay ee ay carabi garan weeyday ee qasimaanta isku ciilkaanbiyayso 50 sanadood dabadood la garaacayo waxa loo garaacayaa maalintii jaaniskay lumiyeen ee Masarna dhulkoodii ku heshay ee lagu aqoonsaday dawladdii lagu dhisi lahaa Falastiiniyiinta ee looga bixi lahaa Suuriya Golan Heights caruur yar baatiine waa la goodoomiyay bariga ninkii loo dhijiray awal saadaad waxa lagu goodoominayay dantii dalkiisa iyo nabadgelyadiisa iyo inuu helo wuxuu xoog ku waayay inuu dawladnimadiisa iyo dhulkiisa helo ayuu ku degay maanta ilayeen maalintii inaynu awal saadaad inaynu yeelaabay ahayd ay leeyihiin maanta qasitii doonaysa in dawlad looga dhiso oo caraboo dhamidaydaysa in la qudusta إلا قدس أو قيبسن ولبا
in dowladnimo la siiyo iyadoo boqolkiiba 90 dalkii ay qaadatay dowladda la yiraahdo Israel saadaradeed jaaniskan inaynu lumino maaha madaxweyne waan kugu hambalyeynaa waan kugu garab taaganahay dadkayga beenta loo sheegayna waxa leeyahay waar maalin waan tooba waliba dhalinyaradiina aan waxba ogeyn taariikhda dalkan iyo dadkan ay soo mareen ragga soo buuxaya hore inuu dagaalamay waa ogeydeen halkan maalmahan kala hadlaynay hawshii hore ayaa la xagaldaayay tan in la xagaldaayay baa la doonayaa maalintii hore ilhaan cumar baa Mareykanka ka soo duushay garooway seexatay boosaasay tagtay xamar bay tagtay Soomaaliland waa aqoonsanaya ka hortaga bay tiri dagaal baa la inagu soo qaaday war miyeydaan waan tooreynin war miyeydaan arkaynin waxa dhacaya war miyaanay waxaynu soo marnay sanad laba sanadood ugu dambeeyo kaliya weerarka iyo dagaalka lagula jiro Soomaaliland war inaynu dunida mid ka ahaano oo qaadano xorriyadeena inuu la soo noqonay walaaladeen 12 sanadood baa imika wada hadalino socdi hal kelmad way ka bislayn kari lahayn hal kelmad way ka fuli kari lahayn markay naga noqdaan midnimadii baa laga wada hadlayo beeraan war waxaan aynu sheegaynaa miyeydaan waan toobeynin war koonfuray miyeydaan waan toobeynin war wuxuu ku soo hanjadayuu leeyahay dalkanaga war Umar Macallin miyeydaan dhageysanaynin war miyeydaan ka baarlamaanka sheeganaya dhageysanayna Kenya ka hadlaya war wuxuu ku hadlayay waa wada fahansantiin wuxuu yiri Bambaasaanu siinay maxay ka doonayaan berbere maxay ka doonayaan Hargeysa waa anagu aanu wax noqono idina waxba ha noqonina deeyeelimayno waxaanu sheegayaa ummadda reer Soomaaliland dhammaantood meel kastay joogaan dibadii gudaba war dagaal baa bilaabay war kii hore haddaydan ka qayb galnaa da'yar ahaydeen maanta koonfur sidaynu isaga celi lahayn cadawga koowaad ee Soomaaliland leedahay waa xamar iyo cid kasta oo ka soo jeeda waxaanu sheegayaa kuwa le distoor baanu leenay shalay BBC-da ka hadlayaan maqlay yaa kula le distoorka war 45 kun oo ciidan oo Itoobiyaan ayaa fadhiya koonfurta Soomaaliya saacad haday ka baxaan wallahi billahi tallahi ashabaabta ay maanta isku mowqifkiin ayaa qabsanaysa xasan sheekh iyo cali dheere labadaba waa dhageysanayeen waxay ku hadlayeen waa maqlayseen isku mowqif bay ka hayeen tan maaha dal baanu ilaalinaynaa iyo wanaag baanu idin doonaynaa waa inaydaan ummad noqon baa la doonayaa reer Soomaaliland ila fahantaan waxa sheegaya wadaadada warxuma tashiilka wadaadda maahe kuwa wadaadada isoo ekaysiinaya nin baa shalay wuxuu masaajid ka yidhi waxa la soo bixiyay halkii lagaga duuli lahaa Kacbada adeero Kacbada 80 kilomitir ayay u jirtaa Eritrea oo Kristani adeero tani been hajaawareerinina dadka xadiiska uu soo qaadanaya waa dhab laakiin waa goorba nin islaami ma maalinta ma noole qiyaamay baa dhacaya waxaan leeyahay yaan loo soo qaadan diin loogu gabanin dalkan aayihiisa iyo mustaqbalkiisa iyo midnimadiisa iyo ummadda in lagu kala qaybiyo saadaradeed waxaan idinku soo gabagabaynayaa war waliba qoladiina warbaahintu waxaad joojisaan qof aan waxba garanaynin oo maxaad ka qabtaa la yiraahdo war cid baa dalkan iyo ummadan ay dooratay oo xil saaran ninka ku sheeganay madaxweynaha 300 oo qof oo maqsin ku xiraysan oo yuru Soomaaliyeednayso ayaa lagu doortay war halka waa ogeeysay doorashooyinkeenu u dhacaan waynu ku soo caanamaalay hayna barbar dhigina ninaan waxba ahayn hayna barbar dhigina xukuumaddana waxaan u soo jeedinayaa iyo golayaasha qaranka maadaama aanay horumarkaaga ogolayn maadaama ay ka been sheegeen heshiisyadii aynu wada galay ee ahayd inaan horumarka la iska carqaladaynin ee ay idin wada ogtihiin bishii afraad maxaa dhacay ariga berbere ka dhoofaya
وين ورقة حمر لقى سوق تابينه وردنا ما هي ستانا ما تحربنا ونكدونا ايديو iyo sabaniyadiiba adeer waanu ka duwanay dalka iyagii anaga haysana ka talina madaxweyne leh ciidan leh daga u diyaara laakiin walaalnimadaanu doonaynay inaanay oolin dadka walaalnimada iyo Soomaalinimada lagu qaldayo war dhageysta waxay ku hadlayaan waana macallin shalay wuxuu lahaa la saanood Soomaaliland kama talin karto oo waa reer ayuu lahaa oo beentii ahayd warfarmaajo wuxuu lahaa waa dhageysanaysan وشنتي رئيس الوزراء هلكا كان لاي إيا أفر نينو لبنا مدحوينيال نقدين لبنا أي دونيان إني مدحوينيال صوماليا كان نقدان ويشرحيهين ويمالي والبتيفية دو تاقين انتو موحي يسكو راعين عراد الصومالي اللامبا يسكو راعين وحاني دوكو سوقا بقوينيا واردالكينا إلى شدا وديار قروبا إنا أفيا أدن بكنت فاعدان وحان صومالنا نقباقيا مدنمو قولي قوبنمو إيا مالي تنو دبالتقينو دالكا قرنبادي سوا سلامي هل كان بركا الله كانو إلا أنصحيو إلا ينو أخريو نمبر 1 تاقيرا هو إمي كان شكا هابوني لتشوشي وحادو فايدينيسا عدو بادو فايدينيسا شكي كتشرا مجرو ملتشري دونو وحانو مدر هيرسو مالان وقباقينا هل كان باي توبي وراقبي سو سارتي تنبي سو سارتي وروحان لعياري أواز دو سياسة إثيوبيا كلينا دالكن ما اعترافيسو إن كستي هذا الكي حكومته أي كوالي لايد وارسقال ضربا one day هل كاسين يسوي من يدكو كارل كعلن كل جت تاجيو مركا أيمنا يان توبن كمدحويني مالي تصود دوليان يدكو كار كبريايا ودبدل يدكو علينا يانا نيدن أركن أو نقول إيسا بلاها صوص الله أيامها كاري هذا الوقت أنا هاينا وتوبن دولة وانا الله قصدي دالكن وانا الله قصنايا هذا الذي الدبلوماسية هذا الله استعماله هكو شيء قليلنا دتك هكو شيء قليلنا